Khadka taleefanka ee magaalada Ouagadougou ee madaxtooyada dalka Burkina Faso marar dhif ah ayuu soo dhici jiray saacadaha dambe, laakiin habeenkan oo ahaa habeen Arbaco ah kana duwanaa habeenadii kale. Abbaaro 3dii fiidnimo waxaa khadka taleefanka ku soo dhacay fariin, taas oo ahayd mid dhiila leh isla markaana ka yaabisay madaxweynaha dalka Burkina Faso Kabtan Ibrahim Traoré. Ma aysan ahayn fariin diblomaasiyadeed oo rasmi ah ama shir fogaan arag ah oo loo qorsheeyay inuu ka qayb qaato madaxweynaha dalka Burkina Faso, waxa uu ahaa cod sir ah oo ka yimid bartamaha magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka markii ugu horeysay ee taariikhda. Ma uusan ahayn cod bixinaya awaamir sida looga bartay madaxda reer galbeedka ah ee boqorada ismooday, kuwaas oo madaxda Afrikaanka ah mar walba siiyo amarro ay uga soo horjeedaan isla markaana ay ku fushanayaan danahooda. Waxa uu ahaa cod ay ka muuqatay calaacal iyo codsi gaar ah oo laga leeyahay hogaamiyaha da'da yar madaxweynaha ruuxiga ah ee dalka Burkina Faso Kabtan Ibrahim Traoré. Kabtan Ibrahim Traoré ayaa fadhiyay xafiiskiisa isaga oo markaasi ka soo baxay shir fogaan arag ah oo la lahaa madaxda gaarka ah ee dalalka la isku yiraahdo Saaxil. Waxa uuna madaxweyne Traoré si gaar ah u dhageysanayay codka iyo gariirka quusta ah ee ka imaanayay quwadaha waaweyn ee xaqiiqsaday in xeeladahoodii ay markaani shaqayn waayeen kadib markii dhinac walba ay quuseen ceeb iyo fadeexad uga imaanaysa faragelinta degdeg ah ay ku sameynayaan dalalka kala duwan ee caalamka. Tani ma ahayn oo keliya codsi khayraad, waxa uu ahaa codsi muujinaya calan uu kor u qaadayay Mareykanka oo ahaa calan cad, kaas oo ka turjumaya nabad. Waxa uuna markaasi ka turjumaysay boqortooyo dhisneed 10 sano oo markaani fashilantay, isla markaana qarniyo badan gumaysanaysay Afrika, sidoo kalena miiranaysay dhiigga Afrika. Su'aasha taagan ayaa ah, ma dhici kartaa in shidaalka kicinayay riyada Mareykanka isla markaana doolarka Mareykanka ka sara mariyay asaagiisa uu markani noqon doono mid u afduuban qaran yar oo go'aansaday inuu yiraahdo maya? Iska hor imaadkani oo keliya ma ahan fuustooyin shidaal, waxa uu ku saabsan yahay hantida laga xaday ciidda Afrika iyo hogaamiyaha dhalinyarada ah ee diiday in dalkiisu ay ku noolaadaan mugdi isla markaana ay ku jiraan diilinta saboolnimada, halka dadyowga la midka ah ee ku nool caalamka ay maanta ku nool yihiin baraara iyo farxad. Burkina Faso waxa ay markani noqonaysaa qubuuraha lagu aaso gumaystaha Afrika in badan dhiigeeda miiranayay. Burkina Faso hadda ma ahan oo keliya buqcad yar oo ku taalo khariirada Afrika, balse hoggaanka ka taliya ee madaxweyne Traoré waxa uu noqday qubuuraha loogu talagalay in lagu aaso dhiig miirashada gumaystaha. Quwadaha waaweyn waxa ay u baahnaayeen shidaal ay ku badbaadiyaan dhaqaalahooda, laakiin Ibrahim Traoré waxa uu dalbaday wax aad uga fiican arrintaas, taas oo ahayd inuu ka istaagay mowqif gaar ah. Waxa uuna u sheegay inaan la isku xadgudbin oo ay fiican tahay in la isku ixtiraamo madaxbanaanida dal walba. Waa cusub ayaa u bariyay qaaradda Afrika. Quwadihii horena waxa ay ku qasaareen dhammaan dadaaladii ay ku bixinayeen qaaradda Afrika. Haddii aad aaminsan tahay in markani Afrika ay ka sii bixayso gumaysiga isla markaana ay muujinayso kacdoonkeeda, ku qor qaybta hoose ee faallada Afrikada xorta ah amaba hantida Afrika. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe dheh oo ay iloobin inaad ku saliso xabiibkeena suuban. Ma u malaynaysaa in dalabka Traoré uu yahay mid cadaalad ah, mise waxa uu kicin doonaa dagaal dhaqaale oo caalami ah? Si loo fahmo sababta wicitaanka 9kii fiidnimo ee dhididka ka keenay madaxda caalamka, waxa aanu dib u jaleecaynaa nidaamka dhisnaa qarniyada badan ee gumaystaha. Tani kuma imaanin si kadis ah amaba sharciyo dhaqaale waxa ay ahayd mashiin loo qorsheeyay in hantida Afrika ee ciidda ka hooseysa ee weligeed aan waxtar u horseedin dadka ku nool korkeeda ay ka faa'iideystaan dowladaha shisheeye ee mar walba ku tiirsan isla markaana ka faa'iideysta khayraadka dabiiciga ah ee qaaradan hodanka ay ku tahay. 10 sano dunida waxaa loo sheegi jiray isla markaana laga gadi jiray in Afrika ay tahay dalal sabool ah oo aan wax aqoon lahayn, sidoo kalena aan maamulan karin hantideeda. Laakiin qof kasta oo caga dhigtay dhulka loo yaqaano Saaxil waxa uu og yahay in ereyga sabool uu yahay been loo isticmaalayay in lagu xado hantida Afrika. Ka fikir nin la yiraahdo Amadou oo aabe 4 carruur ah leh, ku nool meel u dhow goob laga qodo macdanta oo ay leeyihiin shirkado ajnabi ah.
Aabahani waxa uu subax walba u soo kacaa shaqada isagoo aan haysanin wax koronto ah oo gurigiisu uu yahay mid gudcur ah. Waxa uuna arkaa baabuurta waaweyn ee shirkadaha Heston ama Paris oo gurigiisa hormaraya, sidoo kalena wada hantidii awoowayaashiis si loogu dhoofiyo badaha shisheeye isla markaana loogu dhiso macbadyada iyo goobaha kale ay ku tuntaan. Amaadu xitaa ma awoodo 1 litir oo baasiin ah oo uu ku shubto mootadiisa duuga ah si uu uga gaaro goobtiisa shaqada. Nidaamka hore ee wadamada Afrika waxaa loola dhaqmi jiray sidii bixiyaal alaab ceeriin oo kaliya, kuwaas oo ka ganacsanaya kheyraadkooda si ay u dhaafsiistaan amaba ay ugu bedeshaan lacago yar oo qadaadiic ah. Shirkadaha ajnabiga ah waxay imaan jireen iyaga oo wato qandaraasyo hor leh oo diyaarsan isla markaana aad loo qorsheeyay. Waxayna dhihi jireen maadaama aysan Afrika lahayn farsamadeena oo kale, inta badan faa'iidada waxaa iskale maalgashadayaasha. Badana wadan sida Burkina Faso oo kale ah wuxuu markaasi heli jiray oo kaliya 10% amaba wax ka yar, halka 90% kale oo ku qulquli jiray dibadda isla markaana lagu dhisi jiray daaraha dhaadheer ee reer galbeedka iyo nolosha dadkooda si ay ugu raaxaystaan. Waa nidaam uu ninka Afrikaanka ahi godka qodayo, halka shirkadaha shisheeye ay hantidaasi qaadanayso isla markaana ay ka faa'iideysanayaan dhididkiisa iyo weliba hantidiisa. Ibrahim Traore ma uusan ka baran tan buugaagta oo kaliya ee waxa uu ku arkay indhihiisa iyo dadkiisa iyo sida loo gumaadayo isla markaana tallaabooyinka guracan looga qaadayo dadkiisa. Waxa uuna xaqiiqsaday in xiriirada madaxdii isaga ka horeysay ay ku faani jireen dhab ahaantii ay ahaayeen silsilado lagu soo qariyay gacan qaad iyo qosol been ah. Waxa uuna bilaabay inuu weydiiyo su'aashan qof uusan ku dhiiran karin: haddii aynu haysano kheyraadka ay iyagu u baahan yihiin madaxda reer galbeedku, maxaa nagu qasbaya inaynu anagu baryootanno oo aynu noqono mar walba kuwa jilba jabsada ee u baahan caawimaadda? Markii ay yimaadeen wafdi shisheeye oo u dhashay Mareykanka iyo Yurub iyaga oo wata qandaraasyo hor leh ay dalalkeena soo gaaraan, Traore ma uusan ku saxiixin qalinkiisa ee waxa uu ku yiri maya, shuruudahani waa aflagaado ku socota awoowayaashayda iyo caruurtayda, mana qaadan karo gunnimo noocan oo kale ah, dibna uguma gorgortami karo waxa ka dhacaya dalkayga. Dib u laabta gorgortankiina, qalabkiinana qaata oo isaga baxa dhulkayga. Taasina waxay fajac ku noqotay in Afrikaanihi uu sidaasi ula tacaamuli karo dowladihii gumaysan jiray 1980kii iyo heshiiskii lagu galay magaalada Berlin. Maanta Burkina Faso ma ahan dhulka alaabta lagu kala iibiyo isla markaana ku jiro qiimo dhimis, ee waa dal sheegtay inuu madax banaanidiisa xor u yahay, halka uu Ibrahim Traore uu maanta xaqiiqsaday in quwadaha ku jiro caalamka ay mar walba ka shaqeynayaan danahooda isla markaana aysan wax tan ah ka lahayn nolosha Afrikaanka ah, taas oo dadka Afrikaanka ahi ay u noqdeen jaranjaro ay uga gudbaan dhibaatooyinka iyo mahadhooyinka. Isagu waxa uu doortay inuu noqdo nin xor ah isla markaana uu amarkiisu ka shaqeeyo dalkiisa, sidoo kalena dalalka shisheeye ee dowladaha reer galbeedka uu u muujiyo inuu yahay nin xor ah isla markaana mar walba ay tahay isaga in loo soo maro waxa dalkiisa laga qabanayo. Fadlan daawade, haddii halkan la soo gaartay channelka subscribe isla markaana ka mid noqo saaxiibada inagu xiran. Waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa sheekooyin iyo muuqaalo xiiso badan. Sidoo kale, si aad codkaada ugu muujisid kacdoonka ka socda qaaradda Afrika, fadlan qaybta hoose ee faalada commentiga ku qor hantida Afrika.